أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم ملتقى الشبل لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم في العلا والمجد كونوا شامة واحفظوا الدين وأوطان الشيم في محياكم براءات السنين حبكم في كل قلب كالهرم وطن الخير حبيب فانهضوا واحفظوا أمجاده بين الأمم كل شبر في ثراه آمل وحضارات وماضي يحترم لك يا شبل سلام عاطر وسطور خطها نبض القلم ولك البسمات من بصماتنا في عطاء الروح حبا وكرم أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم ملتقى الشبل لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم في العلا والمجد كونوا شامة واحفظوا الدين وأوطان الشيم في محياكم براءات السنين حبكم في كل قلب كالهرم وطن الخير حبيب فانهضوا واحفظوا أمجاده بين الأمم كل شبر في ثراه آمل وحضارات وماضي يحترم لك يا شبل سلام عاطر وسطور خطها نبض القلم ولك البسمات من بصماتنا في عطاء الروح حبا وكرم أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم ملتقى الشبل لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحسلام يا دمان dadka walaalaha muslimiinta ah oo muuqaalkan uu gaari doono dal iyo dibad meel ay joogaanba walaalayaal walaalkiin maxamed cabdi xuseen oo ku magac dheer sheekh doctor magaalada wajeer culumadeeda ducaadeeda kamid ah meeshan aan joogno waa xaafadaha magaalada wajeer kamid ah waxa weeyaan jidka Mandera Road highwayga Mandera
kambuniga Glacier biyaha agtiisa iyo inta u dhaxayda bakariga lagu duba roodiga iyo waxyaalo la midka ah iyo keegi kaakaca oo la yiraahdo xalanay bakari meeshan waxa laga dhisayaa masjid waxa degadaashay taagan oo maanta ugu imaaday oo dhismihiisa waliba gacanta ku hayo oo socdo masjidkan waa masjid wadada highwayga saaran masjid weyn waaye cabirkiisa waa 70 ilaa 65 masjidkaas waxaan bilownay bishii 11aad sanadkii tagay haddana waxaan joognaa bishii 3aad ayaan joognaa 4 bilood oo kaamil ah ayuu masjidka socdaa masjidka waa masjid waxa weeyaan donors oo jamciyada ah iyo dadka muslimiinta oo isku wax darsaday ay dhisayaan maxay yeelay jamciyada khayr Allah si dad walaalahan muslimiin oo waxa weeyaan dalalka dibadda jira ayaa wax soo sadaqaystay masjid yar oo 30 by 30 ah ayay keeneen 30 feet by 30 feet marka anagii culimadii xaafadda joognay noo keenena waxaan u aragnay maadaama masjidka uu ku yeelo wada highway ah oo munaasab yahay meeshana masjid uu ka dhaween xaafado badan oo waxa weeyaan population badan waxa weeyaan uu ku yeelo khayr Allah siiya position kan oo qof muslim bixiyo dhul weyn oo haysto dhul weyn oo ku filan oo haysta ya waxa shuruudi ka soo baxay culimada xaafadda in masjidka la weyneeyo oo 30 by 30 in haddana aad ka maarmi doon in birito la jibiyo maadaama marka jibis uusan ka maarmayna waxaan dhahnay hadeertaan oo la dhisaya dadka muslimiinta la dhaxmarno masjidkana aan weyneyno masjidkii qiyaastaas ayaan ka dhignay 30 by 30 waa ka weyneynay ilaa 70 by 65 ayaa laga dhigay cabir ahaan alxamdulillah dad badan oo muslimiin ah ayaa la dhaxmarnay khayr Allah siiya dhulkan hal nin oo walaalaha kamid ayaa bixi 2 bilood oo 100 by 100 ah ayuu bixiyay oo highwayga ku yeela walaal haddaan magaciisa la sheegaynin oo sadaqaystay labada waalid oo isaga dhashay oo dhinteen ayuu u bixiyay innagana waxaan ku darsanaa sacyiga iyo fakashada iyo wixii jeebka aan ka haynay masjidkan cabirkan la eg alxamdulillah waxa weeyaan foundation kiisa dhagaxa galay hal qof la baxay oo sadaqaystay waxa carra oo bucaad oo la isticmaalayo masjidka lagu dhisayana hal qof la baxay inta kale muslimiintana waxa weeyaan dad kun blog la bixin kula 500 la bixin maadaama la expand gareeyay masjidka oo 30 by 30 laga weyneeyay waxaan dusha saarnay inaga culimada ah khaasatan aniga in la taagan iyo guddigii ilaahay shaqada wixii ka dheeraado estimation-kii iyo budget-kii waxa weeyaan jamciyada budget-keeda wuxuu ahaa 3 milyan ayuu ahaa masjidka markii la weyniyo 65 by 70 laga dhigay budget wuxuu noqday 6.5 milyan ayuu noqday intii marka ziyaado noqotay ayaan dusha saaranay inta ayaan soo gaarsiinay waa kan hadda arkaysaan roofing-kii shaqaalihii meesha ay joogaan baawga iyo baatiga la saarayo alxamdulillah inaan balasteynaan rabnaa intaasna waa wadayna khayr Allah idin siiyo waxaan rabnaa marka 3 qodob oo waaweyn oo 3 material u baahan ayaa masjidka waxa weeyaan baahidiisa ah koow masjidka maadaama baaw iyo baati la saarayo dirishada iyo albaaba quality oo fiican oo baaw ah ayaan rabnaa in la geliyo iyo albaaba quruxsan shayga labaad oo soo hero waxa weeyaan masjidka in silin la saaro waliba la saaro silinki yaraa oo baawga yaryaraa in la saaro kaasoo waxa weeyaan qaraamo badan ku baxaya shayga soo xiga waxa weeyaan waa masjidka rinjigiisa iyo gogashiisa waxaan rabnaa qof dadka muslimiinta ah codkan uu gaari doono dad walaalo wax isku ogeynay ayaa si go'aan aan rabnaa inaan gaarsiino iyo dadka muslimiinta dhamaantoodba waxaan rabnaa khayr Allah idin siiya intaan ayaan soo gaarsiinay tabartaanada halkaan ay maraysaa waana wadnaa shaqadii wili waa shaqo socoto istaagan ma aha shanqartaas maqlaysaan waa baawgii iyo baatiga la isku garaacaya balasadana ku dareyna khayr Allah idin siiya macal raangiga kulli waa marnayna waxaan rabnaa albaabadan masaajidka wuxuu qabaa 4 iyo 10 diriishadood ayuu qabaa iyo 4 albaab ayuu leeyahay 3 albaab oo weyn oo main ah oo masjidka leeyahay iyo hal albaab oo mixraabka uu leeyahay khayr Allah idin siiya
baraandhana gadaal ay ka muuqataan rabnaa inaan meeshii lagu wasiisanayaan ka goyno ku dhisno Allah idin barakeeyo waxaan codsanaynaa in maadaama la joogo bishii barakeysneed ee khayrka badan ee ramadaankeed la joogo in ilaahay wax loo dhiibto man yuqridu allaha qardan hasana ayuu ilaahay yiraahday in ilaahay amaah fiican loo dhiibto oo janno la iibsado oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala laga gato maalka iyo hantida iyo aan leenahay nafteena aan ka iibsano oo janno ku iibsano oo masjidka la soo dhiso masjidku wuxuu u baahan yahay ilaa hadda 400 oo xabo ismiid ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay albaabadaas aan sheegay idriishadaas ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay manaaradahaas iyo raangigi iyo wixii dhan waxa taqaanaan guri meeshan gaaray roofing la saaray finishingkiisa ayaaba intii in ka badan galisa marka Allah idin barakeeyo walaalayaal baatiga way yeela baawga waa dhameystiran yahay wixii kale oo ismiid oo hadda hayn ilaa 50 xabaan ka hayna 450 kaas Allah idin barakeeyo waxaan codsanaynaa in masjidka nala qabto ilaahay wax loola baxo sadaqada meesha lagu bixin la meesha ugu fiican waa rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiraahday man bana masjidan lillahi bana Allahu baytan fil janna qofkii waxa weeyaan ilaahay dartii guri alla dhisa ilaahay baa jannada guri u dhisaya soomartaan ilaahay jannada guri inkiga dhisa guriyaashan adduunkan dhisayna waa laga tagaya waxaan hanti aan leena waa laga tagaya adaa laga wadaya ama adduunyada baa kharaabis waxaan anfacaya waa inta yar oo la bixayno ilaahay u dhibanayno marka khayr Allah idin siiya soo sadaqaysta intaan dad muslimiin aan dhaxmarnay anaga yaa ku darsanay idinkana waa linka sugaya Allah idin barakeeyo masjidkan maanta haduu dhis magaalada irida laga soo galaya ayuu ku yeelaa bilicdaas wanaagsan iyo quruxdaas iyo musaafiriinta wadada ka safraya magaaladana dabcan halkaan ay soo socotaa maadaama xaqan inta soo factory industries ay ka dhisan yihiin magaalada way soo socotaa Allah idin barakeeyo halka marka khayr Allah idin siiya petrolkan Muse Cabdiweyd iyo waxa weeyaan county guest house wajigooda hore ayuu ku yeelaa companyga Galeesha agagaarkiisa iyo inta u dhaxayda Xalan Bakari Allah idin barakeeyo xaafada waa Buulakoom khayr Allah idin siiya ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin barakeeyo waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay janno kaga abaalmariyo oo ilaahay dunubtiisa u dhaafo oo waxa weeyaan athar fiican oo ka dambeeyo gadaashiisa ku intifaacsada bacda mawtihi ilaahay ku anfaca ayaan ilaahay ugu baryaynaa qof kasta oo ka soo qayb qaato oo ximinka geysta wax yar iyo wax weyn ka geystaba maxay yeelay hafadeet qofkii maanta sadaqaysto waxay noqonaysaa inda Allah عظيم ay noqon ittaqun naar walaw bi shaqi tamra weeyaan idha maat ibn aadam inqada amaluhu in aadan haduu geeriyoodo amalkiisu waa go'aya illa min thalath saddex ruux amalkoodi go'ay maayo saddex nooc dadka kamid ah amalkoodi go'ay maayo waxa ay man tasaddaqa bi sadaqatin jaariya qof sadaqa joogta la baxay sida tan oo kale oo waxa weeyaan joogtada ah ajirkiisa go'ay maayo qofka waxa weeyaan ilmo wanaagsan gadaashi ka tago u soo duceeyaan ajirkiisa go'ay maayo qofka waxa weeyaan cilmu yuntafacu bihi ka tagana ajirkiisa go'ay maayo waa dad markay mar walba meediga nagu aragtaan sidaana waxa weeyaan ugu qaylina diinta islaamka iyo dhisaalkeeda shalay waa dugsi maanta masjid waay Allah idin barakeeyo inta codkayga u gaari doono clipkan soo gaari doono si naxariis waxaan ugu codsanaynaa dal idibid inay ka soo qayb qaataan oo waxa weeyaan xoogooda iyo maalkooda iyo dhaqaalahooda halkan ay ku bixiyaan ilaahayna ugu dhawaadaan inta ayaan waxa weeyaan doonayay in aan ka qayb qaato ilaahay idin barakeeyo masjidka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala ramadaankan laguma cibaadeysanin waxa loogu cibaadeysan waayo oo nicmada iyada ay u qadina waxay ahayd gaabis iyo dhaqaale la'aan u socon way darteeda marka waxaan codsanaynaa meeshii ramadaanku ku dhamaado in masjidka lagu dukado oo lagu cibaadeysto oo la furo khayr Allah idin siiya wa mahadsantihiin jazaakumullahu khayr barakallahu fiikum hadii ilaahay yiraahdo masjidka waxaan u sameeynaynay baybil ayaan isbuucan ku mashquulsanahay hagaajintiisi haduuna soo gaarana waa keenina haduusan soo gaarin insha Allah ta'ala wana la soo xariiraya waa meel macruuf oo la yaqaan ku yeela telephone numberkan idinkala waxa weeyaan ku duweyna kala xariiri kartaan idinka iimaan karo waxa weeyaan arki karaya khayr Allah idin siiya waxay waxa weeyaan il ujeedo ilaa la ka dhan Allah idin barakeeyo danta aan kaleena waa inuu masjidkan u daboolmo shakhsi ma aha wax gooni ah Allah idin barakeeyo guri Ilaahay waa guri Ilaahay aan soo daboolno barakallahu fiikum numberada shaashada isku arki doontaan iyo nagala soo xariireysaan wixii tabarna isku soo aadin kartaan ama xariir nagala soo soobin kartaan Allah idin barakeeyo barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh